بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا مطبخ منى ما أنتو حنسميننا delicious macaroni cheese with cauliflower وقد آد فدود أو هويوينك مشغول كا أي ساقو طورة يعني إن شاء الله إلهي وقتها نبركية macaroni cheese كا وحن قدرينا cauliflower وجيت كان أركسينو أخت عدان كا ومدح كوسن له هديدن هين خضارتن وحتكون بدل كتين كابش وحتكون بدل كتين بروكلي سيلري waxyaabaha akhtarka ah spinach waxa doonaysiin insha Allah asleedihiin caruurtu ma jeclo oo ugu dhex qarinaysiin marka cauliflower ka waan jarjaraynaa waan yaryaraynaynaa anigu cauliflower ka waxaan u doortay isaga iyo macaroni-du waa isla cadaan cheese-kii waa isla cadaan marka caruurtu badan waxay moodayaan inay macaroni cunayaan oo khudaar inay gudaha ku jirto badan ma fahmayaan haday fahmaana dib ma laha insha Allah de khasab way waxay miiska la soo dhigay inay cunaan xabad basala iyo 3 mir oo toonana waan jarjaraynaa waan yaryaraynaynaa insha Allah cauliflower waan jarjaray basashii iyo toontiina waan jarjaray dabka waxaan sii saaraynaa digsi aan biyaha ku karkarinayno macaroni-deena insha Allah intay biyuhu noo karkarayaanna waxaan soo qaadanaynaa baaquli saytuun baan ku shubayaa saliidda doontid baad isticmaali kartaa insha Allah waxaan isla shaaxidinayaa basasha iyo toonta muddo 5 daqiiqadood insha Allah 5 daqiiqadood kadibna waxaan ku daraynaa cauliflower-ka cauliflower-ka iyo intaasna way isla wada shaaxidayaan anigu maanta xawaashi waxaan ku darayaa kaliya salt and pepper waa milix iyo filfil aswad baan ku darayaa laakiin xawaashida jeceshahay ama caruurtaadu jecel yihiin baad ku dari kartaa insha Allah laakiin anigu labadaas baa ila macaan inaan cauliflower ku daro waad barateen baan u maleynayaa imika inaan jeclahay zubdaha in yaro zubda ayaan ku darayaa oo dhadhan yaro macaan buu zubduhu cuntada u yeelaa badanaa waan jeclahay inaan ku daro suubka iyo cuntada qaarkood halka saliidda kaga badin lahayd baa saliidda in yar ku daraysaa butterkana waad ku zubdahana waa ku siyaadinaysaa marka zubda yar baan ku darayaa waan isla wada shaaxidinayaa cauliflower-ku waqti badan uma baahna inaad karkarisid adigu 10 minutes 5 minutes iska qaadanayaa laakiin anigu waxyaabaha aad u bisil baan jeclahay marka dabka in yar baan ku raajiyaa badanaana ma fiicno waayo nafaqada ayaa ka dhamaanaysa laakiin sometimes waxa la iska sameeyaa waxay naftu jeceshahay anyway wakaas u shaaxidaya insha Allah biyihii way noo karkareen macaroni-dii waxaan ku daraynaa markaas macaroni-deena macaroni-ga nooca doonaysid ayaad isticmaali kartaa bunni cadaanta doonaysid insha Allah milix yar baan ku darayaa macaroni-da markaas waqti badan ma qaadanayso 10 daqiiqadood ama 15 daqiiqadood intay ku bislaanayso cauliflower-ka haddaad doonaysid nafaqada fiican inaad ka heshid aan waqti haysan xataa ilaa waqtiga noo barakeeye waxaad ku dari kartaa macaroni-da biyaha macaroni karkaraya marka macaroni-da ku shuftid ayaad waxaad ku dari kartaa cauliflower-ka xataa marka ama broccoli-ga wuxuu doono marka masaga iyo macaroni-da way isla karkarayaan marka macaroni-da ka miiraysidna cauliflower-kii wuu karkaray waa isku wada walaaqaysaa insha Allah imika wakaas waa ii diyaar cauliflower-kii wuu bislaaday macaroni-deediina way bislaatay waxaan u sameeyay aan videogeeda idinka tusin imika sauce bechamel suugada cad waayo hore ayaan video u soo dhigay channelkayga marka insha Allah videogan gadaashiisa ama halka dambe ayaan videogaas inii soo dhigi doonaa marka suugadii cadayd baan sameeyay white sauce bechamel suugadaasna hore waan soo sameeyay waxaad ku aragteen xataa lasagna-da inaan ku daray marka sidii lasagna-da kale ayaan imika sameynayaa cauliflower-kii aan shaaxidiyay basashii baan hor dhigayaa haddana macaroni-da dusha ka saarayaa haddana suugadii cadayd haddana saasaan sameynayaa sidii lasagna-da kale intaas markaan 2 jeer saa u sameeyo ayaan dusha sare waxaan kaga darayaa cheese waaba kaas baradhadu macaroni-dan ka wada way bisishahay cauliflower-ku bisil yahay waxaan doonaynaa kaliya inay saas ku yara dhex galaan oo kala yara macaan oo qurux badan yeeshaan oo cheese-kuna uu ku dhalaalo macaroni-da marka foornada waxaad gelinaysaa shoolada adigu 10 daqiiqadood meelahaas 15 bas saas ku bislaaday waana diyaar waa cunto aad u fudud waqti badan kaama qaadanayso waliba hadda cauliflower-ka ku ridid macaroni markay biyuhu karkarayaan waqtigu ku sii fududaanaya wax badan uma baahnida wax shaaxidisid caruurtuna way jecel yihiin waayo cheese ba ku jira macaroni caruurta badan way iska jecel yihiin wuxuuna isla wada cad yihiin macaroni way moodayaan laakiin mar broccoli ugu samee cabbage ugu samee waxyaabo kale khudaaro kale as leedahay way ku fiican tahay isku day insha Allah waxa isku tijaabiya daawidinkaas daawadayaal barakallahu fiikum for watching and inshallah see you next time assalamu alaikum